Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada daawadayaal xulka wararka qodobadan idiin hayna waxaa qayb ka noqon doona mudaharaadyo waaweyn oo lagu taageerayo maamulka Israa'iil oo ka bilowday meelo fara badan oo ka mid ah magaalooyinka Somaliland sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan degdeg ah iskugu yeeray xubnaha mucaaradka iyo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya sidoo kale qodobada kale aan idila wadaagi doono waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka maalmaha soo aadan ku dhawaaqi doona natiijada doorashooyinka golayaasha deegaanka qodobadaas iyo waxyaabihii kale ugu soo kordha ayaan saaxiib yaal idin faahfaahin doonaa ee ku soo dhawaada xulka wararka maanta Himila TV magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxaa la filayaa inay goordhow ka bilowdaan dabaaldegyo waaweyn oo loogu dabaaldegayo is-aqoonsiga Somaliland iyo sidoo kale maamulka Israa'iil wararka aan ka helayna magaalooyinka Hargeysa, Berbera, Burco, Gabiley iyo sidoo kale magaalooyin kale oo kamid ah Somaliland ayaa waxay sheegayaan in magaalooyinkaasi maanta la filayo inay ka dhacaan mudaharaadyo lagu taageerayo Israa'iil waa markii ugu horeysay taariikhda dhul Soomaaliyeed laga taageerayo maamulka Yuhuudda oo lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhana bini'aadantinimada oo ay kula kaceen shacabka reer Falastiin wadahadal telefoon oo shalay dhex maray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayuu Netanyahu ku dhawaaqay in uu si rasmi ah qalinka ugu duugay is-aqoonsiga Somaliland iyo sidoo kale maamulka Yuhuudda tan waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliya ay si weyn uga carootay iyada oo dalal Carabeed iyo dalal Afrika ku yaala qaaradda Afrika ay si weyn u cambaareeyeen Sacuudi Carabiya, Bahrain, Masar, Turkiga iyo Djibouti ayaa si weyn u cambaareeyay halka dalal Carabeed oo kale la filayay inay go'aan ka la mid ah qaataan 48 saac la soo dhaafay si weyn ayaa loo hadalhayay wararka iyo macluumaadka sheegaya in Somaliland iyo Israa'iil ay aqoonsanayaan wixii inta ka dambeeyay dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay juhud xoog iyo xeeladba ku bixisay sidii loo joojin lahaa aqoonsigaasi laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aqoonsiga kadib waxa uu kulan degdeg ah iskugu yeeray xubnaha samata bixinta mustaqbalka Soomaaliyeed iyo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanku waxaa la filayaa inuu ka dhaco madaxtooyada dalka ee Villa Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in si weyn loogu dhiraandhirin doono qodobadii iyo heshiiskii dhex maray Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland macluumaadkan helayna waxay tilmaamayaan in madaxdu ay mowqif isku mid ah soo saari doonaan marka laga yimaado arrimaha siyaasadda waxaa laga wada hadli doonaa arrimaha la xiriira in si weyn loo diido aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israa'iil madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya oo kalka ka hadlayay arinta la xiriirta aqoonsiga ayaa wuxuu sheegay inay si weyn u diidan yihiin arintaasi xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo iyana hadlay waxay sheegeen inay si weyn u diidan yihiin habka iyo nidaamka foosha xun oo Israa'iil ay kula macaamilayso dadka Soomaaliyeed madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku tilmaamay arintaasi xadgudub ka dhan ah arrimaha madax bannaanida Soomaaliya oo uu sheegay in tan aysan mahdin doonin Israa'iil arrinkaasna cunaqabateyn xoog leh ee ka dhalan doonto ugu dambeyntiina faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose 24 saac la soo dhaafay duqeymuhu waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada magaalada Afgooye siday wararku tilmaamayaan saraakiil sarsaro oo ka tirsan militariga Soomaaliya waxay sheegeen in duqeymahan intooda badan lala eegtay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay tilmaamayaan xogaan helayna duqeymuhu rayidka ilaa hadda waxyaalo kama aysan soo gaarin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay qiimeyn ku wada arintaasi xulka wararka telefishinka Himila waa naga intaa